wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad caalamka nagala socotaan wararka laga helayo deegaanada Qorlugud iyo Buqdharkayn ayaa sheegaya in ciidamada kala duwan ee madaniga ah ee beelaha habar jeclo ay ku ruqaansadeen tuulooyinkii ugu badnaa ee laga difaaci jiray degmada Buuhoodle ee ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka kala duwan ee huwanta dagaal ayaa ka qarxaya goordhow degmada Buuhoodle iyo sohodimada ku teedsan waxaa cabsi weyn ay soo food saartay beelaha dhulbahante ee ku sugan aagaga Buuhoodle durtaba waxaa bilaabmay qax iyo barakac ballaaran oo beelaha dhulbahante u bilaabmay huwanta ayaa jahwareer kaga dhacay dhinac kasta oo ay ka dagaalami lahaayeen waxaa lagu furay furimo dagaal oo hor leh waxaa isa soo taraya gurmadka gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ciidamada madaniga ah ee ku sugan xuduudaha Qorlugud ayaa goor dhaweyd la wareegay deegaanka Shangeed oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka huwanta ah oo markii hore saldhig u ahaan jiray oo ay ka soo weerari jireen deegaanada Qorlugud maalintii shalay ahaydna ciidamada madaniga ah ee beelaha reer Yoonis habar jeclo ayaa gudaha u galay deegaanka Buqdharkayn oo ay gacanta kaga dhigeen beelaha dhulbahante oo ku sugnaa xaaladda ayaa iminka isku bedeshay dagaalo hor leh oo ka qarxaya sohdimada Buuhoodle maalintii shalayna waxaa magaalada Ceerigaabo iyo nawaaxigeeda lagaga furtay huwanta qalab kala duwan oo military iyo waliba maxaabiis aad u fara badan waxaa baraha bulshada wareegaya wararka ku saabsan deegaamada Qorlugud iyo nawaaxigeeda iyo xaalad kasta oo dagaal